taageerayaal aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ka ambabaxay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika iyagoo ku wajahan Harare caasimadda dalka Zimbabwe halka ay ku wada ciyaari doonaan kooxaha Zimbabwe iyo Soomaaliya. ciyaartii hore ee Soomaaliya ay ku ciyaartay dalka Djibouti halka ciyaartan ay ku ciyaarayeen Zimbabwe ayaa waxa qaban qaabo u galay dhalinyaro fara badan oo taageera sportiska waxayna sheegeen inay garab u noqon doonaan isla markaasna ay taageerayaan ciyaartoyda xulka qaranka Soomaaliya ay la ciyaari doonto xulka Zimbabwe maalinimada birita ah. Guddiga sportiska magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika ayaa ku guuleystay inay qaban qaabiyaan kooxdan dhalinyarada ah ee ku wajahan Zimbabwe. waa kan mid ka mid ah dhalinyarada qaban qaabada guddiga sportiska. waa Idris Ismail halkan maanta waxa isugu timid dhalinyaro aad u fara badan oo dhalinyarada sportiga ah waxayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan ayna soo taageeraan xulka qaranka Soomaaliyeed ee ku ciyaaraya magaalada Zimbabwe. dhalinyaradan iyaga iskood qarashkooda ula baxay, iyaga baabuurka kareystay, iyaga wax walba diyaarsaday. dhammaanna way ku mahadsan annagana waxaan rabnaa juhdigaas iyo wanaaggaas inaan u gelino oo aanu soo taageerno xulka qaranka Soomaaliyeed ee ku ciyaaraya maalinta biritoole ah magaalada Harare. haddana waa dhaqaaqaynaa waxaana dhannahay ilaa iyo 70 dhalinyaro ah. dhalinyarada ka soo baxaysa Cape Town waxay u badan yihiin dhalinyaro diyaarad raacday Rustenburg gawaaray wataan magaalada Pretoria iyo Polokwane way jiraan. dhammaantood qarashkooda ayaga isku qaba jaaliyad ahaan iyaga isqaba qaabiyay iyagaana wax walba diyaarsaday. igu ku hadlay magaca ugu sareeya sportska Johannesburg Qawteen Kamal Said Mohamed. maanta waa xogtahay laba xaalad ka jirto magaaladan. xaaladu waa xaalad kicitaankii oo xagga boobkii, xaaladna waa xaalad oo wadanimadeeni iyo u muujin lahayn macnaha qarannimadeena. waa ogtahay Soomaalinimada aad inoogu weyn tahay. maantana waa isdhexgalka iyo farxadeeni. macnaha waxaan ka doorbidnay maanta ilmihii inaan xataan ka aadno oo aan taageernimo soo muujino qarankeeni oo macnaha aan fursad ku haysano maanta. marka kulley waa jaanis aad u fiican waana ka faa'iideysanaynaa dhammaan. waxaan u maleeyahay gobolada dhan waa laga soo wada baxaya Soomaalida balas meelis adiga 70 inta ka baxayso iyo gobolada kale oo laga imaanayo guul ayaan rajaynaynaa insha Allah. dareenkan aad ayuu u wanaagsan yahay oo waa dareemaysaa guushii Djibouti momentumka ama macnaha momentumkaas waxay dhalisay in aan annaguna runtii waqtigeena u hurno dhalinyaradaasi dadaashay guusha taariikhiga soo gaaray lugtii hore. waxa hadda aan isku qabanqaabino oo isku xil saarnay in aan maartay dadka dhan isku keenno dhalinyarada inta bixi karta waxa ay tahay inaan siino moral support ah, moral taageero aan siino. waana dareemi kartaa markay ciyaartooyga uu haysto taageero fara badan ayaga hadda waxay dheelayaan away waayo waa ka maqan yihiin maxaa la yiraahdaa wadankooda. marka waxaan rabnaa inaan dareensino inaysan wadankooda ka maqnayn. qabanqaabiyayaasha quruxda badan ee isku soo aruuriyay dhalinyaradan sportska ah waxaana maanta u soconaa halkaas Harare annagoo diyaar u ah inaan taageerno dhalinyarada qaranka aan dhiirigelino. qof walba Soomaali aan waajib ka saaran in aan tusno dhalinyarada Soomaalinimo si ay u helaan encouragement kadibna ay dadaalkooda halkaas uga sii wadaan. waxaan rajaynaynaa guul hadduu Ilaahay idmo waana guuleysan doonaa. Soomaali meel walba ay joogtaan ha isku duubnaadaan. Viva Somalia! Viva Somalia! magacay waa Maad Yura oo kamid ah taageerayaasha xulka qaranka oo ka ambabaxay dalka Koonfur Afrika kuna wajahan dalka Zimbabwe. xulka qaranka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa guul iyo gobonimo dhammaan taageerayaasha. Xasan Cumar Siyaale oo ku nool magaalada Johannesburg maanta waxaan u soconaa safar ee Zimbabwe waxaan taageer oo buuxda u nahay xulka qaranka ee Soomaaliya waxaan rajaynaynaa guul insha Allah. wallahi aad iyo aad dareenkay maanta lama soo koobi karo waxaan hadda u soconaa